maalin wanaagsan habeen wanaagsan kulligiin meesha joogtaan Soomaaliya oo dhan waan salaamayaa waxaan ku salaamayaa magaca Rabbigayga Ciise Masiix walaalayaal waxaan doonayaa inaan la qaybsado su'aalo ayaad mar walba na soo weydiisaan oo ku saabsan Bible-ka su'aalahaas oo idinka aad doonaysaan jawaabteeda su'aasha qayb ka mid ah ugu horeysa waxa weeye Bible-ku muxuu ka oranayaa qamriga Bible-ku muxuu ka oranayaa qamriga Bible-ku qamriga ma diidana in qofku uu cabo in general koob inuu cabo ka badan inuu cabo looma ogola laakiin ilaahayni og qamriga dhibaatada uu leeyahay ayaa wuxuu noo sheegay hadalkiisa ku yiri Bible-ka ayada Ephesians ayada 5 18 wuxuu yiri ha ku sarqaaminina qamriga rabshada ku jirto laakiin ruuxa ha idin ka buuxsamo Rabbiga wuxuu leeyahay wuxuu og yahay inuu rabsho keenayo qofku markuu sarqaamo qofku markuu miirkiisa ka tagaya qaladaad buu sameeynaya hadii laba koob cabo ama ka badan cabo dhibaato ayuu qofku sameeynaya marka wax wanaagsan ma ahan in qofku intuu sarqaamo uu qaldamo uu ceeboobo markaas uu dambaabaya dambigaas marka la diidaya marka instead waxa noo fiican in aan ruuxa ayaa nabadna siiya nabadgeliyana siiya inaan kitaabka aad u sii barano oo ruuxa ku noolaana ayaa ka fiican u yiri ka su'aasha waxaan maleynayaa inay jawaabtaas ay tahay jawaabta qamriga aad fahanteen sida ma ahan dadka kale qofka koob qamriga wuu cabi karaa laakiin ma cabi karo ka badan laakiin bacdama aan bili aadan nahay oo qiyaasi karin oo anaga freedom-keena aanan xadidi karin waxa fiicanba waxa deeb rabsho ku keenaysa inaa ka leexatay ani kale ahaan opinionkeyga saas ay la tahay laakiin kitaabku waxa uu sheegayo ayaa muhiim ah kan labaad Bible-ka su'aasha kale aadna weydiisaan waxa weeye markasta walaalayaal waxa weeye Bible-ku muxuu ka oranayaa ninka iyo naagta hadday isla seexdaan ayagoo isqabin su'aashaasna dhowr goor bay soo noqotay ay dadkana weydiiyaan dadka ehel kitaabka inta badan waa isku wada mid ka qofku haduuba uu aaminsan yahay Ilaahay inta badan sharciyada inta badan way isleeyihiin marka Bible-ka Corinthians koowaad 6:15 ilaa 17 wuxuu leeyahay Ilaahay miyaanan garanaynin jirkiina inuu yahay xubnaha Masiixa haddaba miyay qaadaa xubnaha Masiixa inuu dhilanimo xubnaheeda ka dhiga taasi yaanay noqon buu leeyahay macnaha jirkiina Ilaaha ku dhex nool anaga jirkeena waxa ku dhex nool ruuxa quduuska marka Ilaahay qofka haduu ku dhex nool yahay waa inuu noqdaa qof nadiif ah miyaynan ogeyn ayada 16 miyaynan ogeyn kii dhila raaca inuu la jir yahay waayo Ilaahay wuxuu leeyahay labadu waxay noqonayaan isku jir laakiin kii raaca
ruuxa wuxuu noqonayaa la ruuxa macnaheedu waxa weeye qofka jirkiisa wasaqeeya oo wax xun ku sameeyo waxaasuu noqonayaa wax wasqaanuu noqonayaa edab daran laakiin qofkii jirkiisa wanaajiyo oo quduus ka dhiga wuxuu noqonayaa jir nadiif ah oo ilaahay ku dhex nool yahay. su-aasha kale oo walaalayaalo aan mar walba aadna weydiisaan waxa weeye kitaabka Bible-ka waa la bedbedelaa markastaan maqlaa markastaana loo soo qoraa markastaana la yiraahdaa waxaan wax la bedbedelay maxaad u raacdeen oo kitaab aan jirin oo bini aadan qoreen oo maxaa la yiraahdaa waxa waaye wixii la rabo laga bixiyo sanadka markay wax xumaadaan laga bixiyo wixii kale la geliyo hadalladaas aan maqlaa meel ka timaade ma aqaano waxaa laga yaabaa taariikhda historical wax ah inaad isku qaldaysaan iyo inaad isku qaldaysaan wax aynan aqoonin iska qiyaasateen Soomaalida inta badan ama dhaqankeena waxa waaye waxaa la yiri wax baa la maqlayaa wixii baa la iska raacayaa cilmi dhagool wax ah baa la iska sheegaa marka waxa ka fiican waxa hadaadan ogeyn raadi oo research ku samee ama dadka yaqaan weydiiyo kitaabka quduuska muujinta 22 18 wuxuu oranayaa 18 ilaa 19 oo anigu waxaan ku iraahdaa nin kasta oo maqla ereyga waxa soo sheegida oo anigu waxaan ku iraahdaa nin kasta oo wax maqlaa oo ereyga waa wax si sheegida ee kitaabka la qoray haddii nin wax ku daro iyaga ilaah wuxuu isaga wax ku darayaa balaayooyinka kitaabkana ku qoran qofkii macnaha ilaah kitaabka wax ku dara waxbaa ku dhacaya oo haddii nin wax ka qaado ereyga kitaabkan waxa sii sheegida isna ilaah baa qaybtiisii ka qaadi doona geedka nolosha oo magaalada quduuska ah iyo waxyaalaha kitaabka ku qoran macnaheedu waxa waaye qofkii habaar camal weeye qofna waxba kuma dari karo qofna wax kama qaadi karo qofna wax kuma daro qofna wax kama qaadi karo marka geedka nolosha oo dhan magaalada quduuska ah oo waxyaalaha kitaabka ku qoran wax kasto kitaabka qoran qofna wax kuma dari karo waxna kama bixin karo waxaana maxay tahay awoodda ilaahay leeyahay uu na tusinayaa ilaahay awoodiisa ereygiisa xataa haddii qofku kitaab waayo hadduu wax arkin xataa ilaahay dhagxaantaydan ka hadlaysiina xaqa lama qarin karo uu yiri kitaabkiisana laguma ciyaari karo waxa dadku ay bedelaa maqlaan waa language-kiyada iyo maxaa la dhahaa luqadda language waa ku darsama dunida development ee sameynaysaa language-kii oo bariyihii hore lagu hadli jiray iyo language-ka hadda lagu hadlo way kala luqadda hadda lagu hadlo way kala duwan tahay luqadaha ayaa laakiin ereygiisii oo kale meesha lagu qoraa ma ahan in laga bedelayo whole sentence-kii oo dhan sheekada oo dhan laga bedelayo laakiin kelmadda 200 sano ka hor hadalkii dad ku hadli jireen iyo hadalka isma laha
academic way baa loo bedelaa laakiin looma bedelo kitaabka sheekada sidee tahay looma bedelaa because sababta waxay tahay kitaabka waa nolol dadku way ku nool yihiin soo noloshoodii oo dhan waay noloshoodii marka haddii la bedbedelo noloshii anaga nala ka qaaday waay marka ilaahay wuu uga digayaa dadka mana ay dhacin ma qof ku dhacana ma jiro bible-kana waa buugga ugu qiimaha iyo qaayaha weyn ee dunida oo dhan oo wax walba laga soo saaran karo oo wax walba laga baran karo marka kitaab loo baahan yahay iyo nolol loo baahan yahay iyo wax loo baahan yahay oo aad qiimo weyn ugu leh waayo dadka aaminsan ereyga ilaahayna qof ma bedeli karo si kasta ay dadka waqtiga ay rabbiga la joogeen dadku waxbay wada qoreen markay qorayeen hadaladii ay ka qoreen rabbiga kulligood warqadahoodii oo dhan waa isku wada mid hadalka aan ku hadlo hadalka hebel ku hadlo hebel hadalku ku qor si u qoro buu u qoray laakiin hadaladii iyo dhacdadu isku si way sheekadu waa isku si sababtoo hadalkii uu rabbiga ciise masiix ku hadlayay masaal bay ahayd masaalkana ma la warwareejin karo siday ahayd baa loo qoray ereyadii hore oo kitaabkii hore nebiyadii horena waa hadallo ilaahay kula hadlay soo sidii ay u qoreen ayagana waxaan u malaynayaa taas inaad garan kartaan ruuxa ayaana lagu garan karaa kitaabka qofka hadduunan aaminsanayn una masiixiyadda aaminsanayn ma fahmi karo maanta hadduu aqriyo hadduu meel kasta kasoo bixiyo dad badan waxaan arkay kitaabka wax kasoo saara oo yiraahdo waxaad maxay tahay kan ii macneeya haddaan kuu macneeyo xataa ma garan karti sababtoo ruux ma jirto taasna waa another subject laakiin su-aasha waa la bedbedelaa ma jirto qofkii ka saara wax ama ka waxeeya ilaahay wuu uga digay kitaabka mana laga saari karo mana la bedelo okay su-aasha kale oo aad dadka ay noo weydiiyaan waxaa waaye bible-ku muxuu ka qabaa kaniisyada ama dadka gayga la yiraahdo ama dadka homo muxuu kitaabka ka qabaa kitaabka wuxuu ka qabaa horta intaanan macnaynin ayad baan ku hormaraya sidaas darteed ilaahay wuxuu u daayay damacyo ceeb ah waayo dumarkoodii isticmaalkoodii loo abuuray waxay ku bedeleen mid ka gees ah kii loo abuuray macnaha ilaahay wuxuu u abuuray dadka nin iyo naag inay isticmaalaan laakiin dadkii mid ka gees ay sameeyeen sidaas oo kale raggii intay iska daayeen isticmaalkii dumarkooda oo ilaahay u sameeyay ayay iyaguna damacoodii gubay oo haddana isku qooqeen isku kacsadeen ragna waxay rag kale ku sameeyeen wax ceeb ah oo isku tageen waxayna dhexdooda ka heleen abaalgud qaladkooduna waajib ku ah waxaan u malaynaa inaad ogtihiin maxaa la dhahaa historygii reer Qoomaluud intay ogolaan waayeen inay ilaah ku sii haystaan aqoontooda ilaahay macnaha wuxuu abuuray intay ogolaan waayeen ilaahay wuxuu u daayay maan dulli ah intay sameeyeen waxyaalo aan qumanayn macnaha dadku ayagoo qalad sameynaya haddana dunidu way joogayaan ama wax sameynayaan ama waxay ayaga dareemayaan laakiin kitaabku wuxuu ka qabaa waxaa weeye in ragga iyo dumarka nin iyo naag baa la isku sameeyey
wax ka duwan ilaahay ma sameyn intuu xaawiye aadan sameeyey ayuu dunida abuuray laakiin dadka damacyadooda ayay waxaas ku sameynayaan kitaabkeena saas u qoraya waxaan u maleynayaa inaad idinka dhaadhacday qofku wuxuu rabo sameyn karaa aniga waxaan rabaa sameyn karaa qof kasta wuxuu rabo sameyn karaa laakiin ilaahay wuxuu isku kaay abuuray nin iyo naag inay yihiin dadka laiskugu talagalay oo dhadig ah laakiin dadka ayaga xor ah waxay doonayaan ayaga samaystaan marka kitaabkeena saas uu ka leeyahay in qofka dadka xornimadooda ay waxaas ku samaystaan kitaabkan waxyaalo badan oo ka yiri mana ogola nin isku tagaaya waa xaraam xageena ilaahayna ma ogola laakiin dee waa dembiyada sida dadka kale dembi u galaan anaga caadiga ahba ninkii naagta ay isqabinay ay wax xun sameyn karaan so dembiyada ka mid tahay ayuu kitaabkeena qorayaa laakiin ilaahay wax ceeb bay cagdiisa ka tahay nin isku tagaaya mana ogola mana iskugu talagelin waxaan u maleynayaa afartaas aaladood ayaan doonayay inaan la qaybsado waxaan filayaa inaad jawaab ka hesheen oo jawaab intaas ay idinku eg tahay kitaabkeena anaga lama bedbedelo maxaa la yiraahdaa amrigana lama ogola maxaa la yiraahdaa inuu qofku qamri cabo oo ku sarqaamo oo qalad ku sameeyo dambi ku gala lama ogola iyo dadka nimanka isla seexanayana ma la ogola ilaahay wuxuu isku sameeyay nin iyo naag labadaas ka badan ma uu ogola waxaan u maleynayaa inaad caqligiina ka fahantaan kitaabka waa ilaahay hadaladiisii qof awood leh oo inta qaado guba xataa tirtira xataa wax kasta samee xataa kitaabka originalkiisa meelu yaala ma la tuuri karo ma la waxayn karo lama waxay qof intuu qaadana wax ma gelin karo waa wax la ogyahay oo ilaa aad dadkuna u ilaalinaya ilaahna awoodiisa ku ilaalina ilaahay awoodiisa markaa barataan waxbaa la sameeyey waxbaa la qalday horta maba dhici kartaba sababta qoonkan ilaahay baa iskale buuggaana asagaa usoo diray waa mahadsantihiin walaalayaalo ilaahay waxaan idinka baryayaa inaad qalbiyadiina aad ka dhaadhacdo su-aashaas aad fahantaan waana mahadsantihiin intaa dhagaysateen soomaalida oo dhan meel kastoo joogtaan waa mahadsantihiin